saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan, saddexda ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan. saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda. saddexda ummaduhu way ku dhismaan. ninkii doonay inuu ummad dhiso, ninkii doonay qoys inuu dhiso, ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa. waa in laga helaa ammaano, waa in laga helaa waxa laguu dhiibay, ama reerkaaga ha noqoto, ila nin walba reerkiisa waa ka mas-uul, ama meherad qof leeyahay ha noqoto, ama mas-uuliyad hoose ha noqoto, ama mas-uuliyad ummadeed ha noqotee wixii laguu dhiibay waa in sideeda laguugu yimaadaa, waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya. ammaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku. sidq, dadka run unu sheeg, weligaa been ha sheegin. oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay ku yidhaahdeen, yaa rasuul allah, ninka mu'minku fulo ma noqon karaa? haa, waa noqon karaa buu rasuulku yidhi. ninka mu'minku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa? wuu noqon karaa buu rasuulku yidhi. markaabaa nebiga lagu yidhi, nebi allow, ninka mu'minku beenaale ma noqon karaa? markaabuu nebigu yidhi, mu'minku beenaale ma noqon kara buu yidhi. iimaanka iyo beentu isma galaan. ammaano waa inuu qofka muslimku yeeshaa. sidqi waa inuu yeeshaa, uu noqda run sheege. asidqu tuma'aniina buu nebigu yidhi, walkidibu riiba. beentu qofka shiki bay ku abuurtaa, shiki iyo waswaas iyo cabsi bay ku abuurtaa, halka runtuna qofka muuminka ay siisa maaragtane nabad uu ku helo. cadaaladna qofka muslimku waa inuu yeeshaa cadaalad. labada ilmoodeed wada dhashay baa la rabaa inaad u cadaalad samaysid. halkaa baa shareecadda islaamku cadaaladda ka bilowday. saxaabi baa nebi maxamed ula yimiday, inankiisii buu wadaa, farasna uu wadaa. markaa buu yidhi, yaa rasuulallah, wiilkan waa wiilkaygii, carruurta asagaan ugu jecelahay, faraskanna isagaan u hadiyeyey buu ka yidhi. markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay? fardahaasoo kale ma wada siisay? maya, ma siina, laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday. markaa buu nebigu yidhi, waryaa, ama wada sii ama ka daa buu nebigu ku yidhi. anigu dulmi mara ka noqon maayo buu nebigu yidhi, markhaati ka noqon maayo dulmigaad samaynaysa. labada ilmoodeed wada dhashay ayay shareecaddu ku leedahay, u cadaalad samee oo ha u kala eexanin. hadday noqoto wax siina, dhaxal bay leeyihiin oo dhaxalkana looma dardaarmee. nin walba dhaxalkiisu wuxuu qaadanaya suuratu nisaa iyo suuratu albaqara ilaahay jalla wacala uu kaga warramay. saddexna ummaduhu way ku dumaan. saddexda ummaduhu ay ku baaba'aan, ay ku dumaan, waxaa ka mida bay culimmadu leeyihiin saddexda ka soo horjeeda weeyaan. sidqiga waxaa ka soo horjeeda waa beenta, ammaanada waxaa ka soo horjeeda waa khiyaanada, cadaaladdana waxaa ka soo horjeeda waa dulmiga. inaad cadaalad yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay. inaad ammaano yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay. inaad runsheega noqotaa alla ka cabsi baad u baahan tahay. inaad khiyaanada iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay. inaad beenta ka dhowrsoonaata alla ka cabsi baad u baahan tahay. inaad dulmiga iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay. marka kelimadan allaha laga boqo ee khudbad kastoo jimcaba lagu soo daraya lagu khatimaayo, kelmad sahlan maaha. hadday dadku ilaahay ka baqaan oo ilaahay ka cabsadaan, nolosha adduunyadu waxay noo noqonaysaa janno ku sug. marka nolosha adduunyada janno allah inooga dhigo, kuwa ilaahay ka baqana allah inooga dhigo, dembigeenna allaha dhaafo.